سيدك يا صاحبي كل حالة الحمد لله فينا ونكسنتها خير حفظي يسلوها يسلي غرابتي كور الحمد لله اني في عين والله وين بلا ورني هو الحمد لله بريها بو اصل لان oo si wanaagsan wadankii waa taa ka imaatay oo waxaan rabay inaad bal iga sheekayso wadanka xaaladiisa iyo meel wax marayaan ni waranta way soo weynay maalmahan niyo wadankii wallahi wax aan halkan kugu soo koobi karayo ma ahan wixii ka jiray inaan israacno oo aan wada tagno ma ahan ma garanayo yani wax aan maaragtay aan halkii kugu soo koobi karo laakiin waxaan ku sheegi lahaa niyo wadankii horta horumarku aad buu soconaya bulshada aad bay u dhisan tahay xagga ardayaadka iyo iskuulada dadka jooga wadankan ku soo arkay waa dad qaybna ay ardaytoo wax baranayso qaybna ay dad shaqaysta iyo yihiin oo maaragtay horumarka ay aad uga shaqaynayaan marka niyahow wax aan soo koobi karay ma ahan xitaa waxaan ka xasuustaa waxyaalaha aan soo arkay aan ilaawi karin ganacsiyada oo sare u kacay maalgashiyo wadanka lagu samaysanayo oo dadkii qurbaha jiray intay soo laabtaan ay wadankii kusoo laabtaan yani la kala qabsanayo oo maaragtay la kala horursanayo dhismayaasha hore ee suuqaqa u dhow dhan marka niyahow wadankii wax cajiib ah ka jira waxyaalaha kale ilaawi karin waxaa kamid ah ardayaadka jaamacadaha oo aad u badanaya kuwa ka qalin jabinaya oo aad u badanaya waxyaalaha kale oo iga muuqanaya waxaa kamid ah oo aan iyaguna aad ka xasuusto waxaad arkaysaa niyow dhalinyaro barnaamijyo waaweyn wada kambaniyada waaweyn manager ka ah goornaya kambaniga hebel waxaa manager ka wiil dhalinyaro hebel oo kaas oo arkayso marka soo dhalinyarada yani creativity-ga dadkan yeesheen uma malaynaysid wadan ama burbur hore oo arkay ama maaragtay yani wax dhibaato ay hore u soo gaadheen marka niyahow waxaan odhan lahaa wadankii wax cajiib ah ka jiray oo maaragtay aan soo koobi karin marka waxaan jeclahay inaan mar wada tagno niyahow wadankii wax ka gaadhno wax ka qabsano oo yani xagga horumarka aan maaragtay la qaybsano haddii kale waxay gaari doontaa waqti la isku qabsan doono oo aad bogcadaha fadhiisata ka wadi doontay gaari doontaa meel walba la qabsado marka niyahow arrintaas waxaan malaynayaa maaragtay inay tahay wax hadda ah haboonta inaan gaadhno ama hawsheeda galno marka wadankii kolley wax warkiisa maaragtay lasoo koobi karayo ma ahan ama aan halkan ka odhan karay yani waa waxaa weeye wax yar baan soo arkay indhahaaga unbaa kaga soo dhargi kartaa baan kugu ilaaniyo arrimaha kale oo maaragtay waddanka aan inaba la ilaawi karin waxaa kamid ahaa halo ها صاحبي يقول فيها والله الحمد لله فيها معايا صاحبي خير والله الحمد لله عبد الرحمن اوه صاحب يلا حالك صاحب ستة في عند صاحب في عندها الحمد لله الحمد لله هلا حالها يا حبيبي من انا السوق قلتي بتوي قاعد نيو ها ما تركنا نيو صح waxaan ku balansaray ninkii saaxiibkeena Xuseen اوه سفيان madax Xuseen halkaas uu nimid in badan baa isoo weynay hore marka wuxuu rabay inuu aad xiiseynay arrimaha waddanka in maaragtay looga warramo واقف maadaama arrimaha aan uga warramayayna saaxiibka ima soo dhaweyn qaabku ilaalay يعني isagoo ii warramayo margidaaradu iska eegay halkaas uu dhahayaa saas uu oranayaa hadda shakada in oo wada waliba isagoo jeclaysanayay inaa uu imaado هو تاس mid labaad oo ii muuqanaysa aan ku dhameeyo waxa weeye silku faraas kala galaya finacil buu iska qaadanaya markaas wiilkaha la gelaya وصاحب waxyaalaha jaabka badan aan ku arkaysan وصاحب waxaa ka maqnaa maxaa dhacay wuxuu isaga in uu leeyahay ma ahane waxay shacabkeena iyo macnaha dadkeena Soomaaliyeed ay dabeecad iyo dhaqan u leeyihiin inta badan marka maqaaxiyaha la joogay meelaha la soo yimaaday waxaas dabeecad iyo dhaqan iyo waxbay noo tahay oo wax badan waxaa arkaysaa aniga meelaha bulshada waxaas qofku isticmaalay oo ku xataa fiif leh niyo waa runta arrimaha xoogaa xagga dadka dhaqanka oo oga in aad maaragtay xoogaa dadyo kala markaa isto aad fiicannahay marka niyo waa ka dareemaysaa in maaragtay sanka iyo waxan iyo ها ما نحسسنين مركز أرنتاسي حنسلم لك حسين معاه هلا بيجوز ولا مايا وحن نوجود أوي حتى أنا دلالك الشيء عن تجنيه مركز أنا كسر قلنا هاي دخل كده عاد الصومالي ده وابلي تعب حالي هذا واحد قف خدير لو قف سنك مقاحي كجرو سنك سكفر فرينه حالي قف كاس وحقاد مهم أولي بقى مركز أدتك السلام يصير جواها بلشدنا أسوتي ما دام قفك إن سي ولا سنة أو سنتين سي معناها diirnaan leh oo aad qofka aad waliba aad u dholo cadeynaysid indhahaagisana aad qofka aad eegaysid waliba adigoo faraxsan sidoo kale waxaa muhiim ah inaan goobaha la isugu yimaado dadku badanaa ay ku kulmaan inaadan findhicil aadan ku dhex isticmaalin haddiiba aad ka badin weyn u baahatid
inaadan macnaha aadan afka taagtaagin ee gacanta afka saartid adiga oo danahaaga buuganaya sidoo kale waxaa aad muhiim u ah in macnaha meelaha qaar marka aad joogtid oo kale inaadan ku dhex xamaansanin oo aadan macnaha aadan caajis iyo qofkii aadan dareemin si qofka sheekada kuugu wada oo kale uusan runtii u dareemin inaad ku dhex caajistay waa runta aad baa usxan tahay dhowrka mudug baana ku dari lahaa yani fariintaas waxaan ku dari lahaa marka aad dad la shirayso ama la fadhida ama la joogto waxyaalaha aan fadhiga ku wacnayn ama fadhiga xumeeya waxaa ka mid ah inaad iska jeejeysato meelaha iska eegto oo marba iyadoo sheekadii lagu wado aad iska dhigto yani mid aan la socon waxaa laga yaabaa inaad la socoto laakiin ma kuu fiicna anshaxa fadhiga ahaan midda kale inaad meelaha iska xoqoto oo asaa dhacdo iyadana wax maaragtay aan wanaagsanayn weeyaan midda saddexaad oo aan ku dari lahaa waxaa weeye adigoo qof la fadhiya ama la hadlaya haddii telefoonku uu kugu soo dhaco qofka kula fadhiya weydiiso permission inaad telefoonkaas aad ku hadasho ama qabato weydiiso ka codso ma qaban karaa telefoonkan waxaa 100% ah oo sax ah in qofkaasi uusan ku odhanaynin ha qabanin ee wuxuu ku odhanayaa qabo oo hadal marka isagoo satisfy ah baa hadlaysaa laakiin qofka oo hadalka wada haddii aad telefoonku kugu soo dhaco oo iskala boodo oo qabato arrintaasna waxay noqonaysaa mid ka baxsan yani anshaxa wanaaga fadhiga ayay xumaysaa saaxiib aad baa umahadsantaha kolley qodobada iyo waxyaalaha fadhiga xumeeya oo dhan way badan yihiin waxaan dareemayaa kolley in wax badan ay isbedeli doonaan aad iyo aad wixii maaragtay cid kasta u muuqdo waxaan kula talin lahay inay maaragtay ay iska ilaaliyaan oo noona soo gudbiyaan wanaagsan si fiican aad baa umahadsan